guuleystayoo dhami waxay isla xaqiijiyeen hal point. halka pointiyo ah waxaad noqonaysaa waxaad ku fikirayso. nolosha dhami waxay ka bilaabantaa fikir. fikiradana waxay ku gudbiyaan dareenkaasina wuxuu ku kaxeeyaa wax qabsi ama waxba ha qabsan. halka waxa ka soo baxaana waa hal natiijo ood ku gaartay fikirkaas. natiijadaasina waxay saamaysaa fikirkaaga. fikirka taban ama positive-ka wuxuu ku horseedaa waxyaabo fiican oo noloshaada saameyn fiican ku yeesha. fikirka negative-ka ama xuna wuxuu ku horseedaa caajis iyo niyad jab. kaasina waa saameynta fikirkaaga. mustaqbalka fiican waxay ku tiirsan tahay hadaf, laakiin ma aha hadaf yacni hadaf baa leeyahay ee hadafka waa kay noloshaada ku tiirsan tahay. adigay daawanaya, adiga daawadaha ah waa hadafkaad leedahay, kaas ay noloshaada ku tiirsan tahay. madaxdeena markaan dooranayno mid kastaa wuxuu inoo sameeyaa ballanqaadyo sidaan u doorano. mid kastaa wuxuu isku dayaa ka kale inuu ka fikrad sareeyo amba wax ka fiican u soo jeediyo. haddana markaan doorano ballanqaadyadii siday tahay uma oofiyaan, siday u ahayd ma qabtaan. waad garanaysaa sababtii saasoo dhan u sameynayeen, ballanqaadyada u sameynayeen, beenta intaa leeg u gelayeen waxay sababta inay doorano keliya ee may ahayn hadaf u yaala inay wadankooda wax ka bedelaan ama wax u qabtaan. hadafkaaga hadduu yahay oo keliya inaad guulaysato, ogowma tihid guulaysta waa ka fikirka dadkiisa, dalkiisa, ubadkiisa iyo naftiisa wax u taraya keena, siday ahaydna wax ugu qabta. guulaystuhu kama sugo inay dadku kala qiimeeyaan siduu u hadlayo, siduu wax u qabanayo, siduu u eg yahay. ee guulaystuhu waa ka jeexa wadada fiican ee laga daba raaco. guulaystuhu maaha qofka xooga weyn, amarku taaglaynta badan ee jecel in amarkiisu keliya la qaato. ee guulaystuhu waa ka dareemada dadka kale, waa ka dadka tusa wadada saxda ee dhibtooga bixi lahaayeen. markastoo qof caawiso ogo waxaad iibsanaysaa farxaddaasoo suuqa ka soo iibsan karin. haddaad rabto inaad guulaysato, aqbal guuldarrooyinka. aqbal inaanay dadku ku wada jeclaanahayn. ogow guuldarrooyinku inay yihiin wadada guusha. markaan guuldarraysano waan shallaynaa, xanuun bay noqotaa, laakiin ogow inaad guuldarraysatay waxay ku tusaysaa inaad nooshahay oo dhaqdhaqaaqayso. adduunkana waxaa lagu keenay inaad qalad samayso, qaladkaagana aad saxdo. markastood guuldarraysatay ood wax ku guuldarraysatay, ogow xunbaad ka baratay, xunbaad guuldarrada iska dhex baratay. laakiin waxyaabaha ugu muhiimsan waxa weeyaan inaad isdhiibin. haddii aad guuldarraysto weligaa ha isdhiibin. haddaad akhriso qof kastoo noloshiisa guul ka gaadhay, dadka noloshooda wax kusoo kordhiyey, adduunkan wax kusoo kordhiyey, 100 jeer in ka badan bay guuldarraysteen. 100 jeer in ka badan bay fashilmeen. in ka badan baa la nacay oo lagu qoslay fikirkaaga wax suurtageliya maaha. haddana saasay tahay waxay aamineen inay noloshooda marun waxay rabaan ay gaariyaan, horena way u socdeen. markastay guuldarraystaana waxay u arkayeen habkay wax u wadeen inuu qaldan yahay, hab ka duwanna way keenayeen. sidaan wada ognahay ninkii laambadda sameeyey 100 jeer in ka badan buu ku fashilmay inuu sameeyo laambad, wuu ku guuldarraystay. saasay tahay haddana wuu sii waday, waayo fikirkiisa wuxuu ahaa inuu keeno adduunka waxaanu bili-aadanku ku fikirin, wax shidmaya oon hore loo samaynin. wuxuu ku fikiray inuu sameeyo laambadda maanta aan shidano. maalin maalmaha ka mid ah ayay gabar saxafiyada weydiisay oo ay ku tiri, Thomas Edison 100 in ka badan ayaad isku dayday inaad samayso waxaanu bili-aadanku ku fikirin oo ah laambad, waanad ku fashilantay. 100 jeer in ka badan baad ku guuldarraysatay. maad iska daysid maxaad u wadaa? maad garanaysaa wuxuu ugu jawaabay? wuxuu ku dhahay, markastoo wax ku guuldarraysto ambaan qaldo, waxaan ogaanayay inaan ogaaday hab kaloo laambadda loo samayn karin. hab kaloo ka duwan ayaan u waday. 350 jeer ayaan hadda guuldarraystay. 350 jeerna waxaan ogaaday habka 350 hab oo aan laambad loo samayn karin, hab ka duwanna loo samayn karo. haddaba taasi waxayna tusinaysaa haddii waxaad ku guuldarraysato inaad isdhiibin, laakiin aad bedesho habkaad wax u waday, wada hab kale u wado, wada hab kale u bedesho si aad
ugu guulaysato waxaad doonaysaa. inta badan dadku waxay u fahmaan fikirka ah waxaad rabto inaad gaadhahay sidhiibna inaad wixii ku celceliso ku dhaganaato. taas macnaheedu maaha ee macnaheedu waxa weeyaan habkii bedel oo hab kale u bedel saad ugu guulaysato waxaad rabto. maalin maalmaha ka mid ah anuu dhageysanay Maxamed Cumar Cismaan barnaamij uu soo jeedinayay ayaa wuxuu dhahay dadku waxay u kala qaybsamaan 3 waxa weeyaan ukun amba beed kolba soo taqaano baradho iyo bun. wuxuu dhahay ukuntu waad aragtay way jilicsan tahay marka la kariyana way adkaataa dadka qaarna waa sidaas oo markuu dib la soo kulmo marka hore ayagoo jilicsan dib markuu la soo kulmo way adkaadaan oo iyagoo adag bay ka soo dhex baxaan. dadka qaarna waa sida baradhada oo iyagoo adag ayaa marka la kariyo ama dib la soo kulmo way jilicaan sida baradhada farahay kala raacaan. baradhada marka la kariyo way jilicdaa. dadna waa sida bunka oo iyagoo marka horeba adag ayaa marka dib la soo kulmo dhibtii way bedelaan oo wax kale ka soo saaraan oo noloshooda dhan way ka bedelaan. waana sida bunka marka bunka biyo ku loo ridaanba la kariyo midabka biyaha uu bedelaa. bal adigu go'aanso 3daa kee waa tahay ma kii dhibka bedeli lahaa ee wax kale keeni lahaa sida bunka ma kii dhibka markuu la kulmo adkaan lahaa oo sida beed ka soo dhex bixi lahaa mise waxa tahay qofka adag ee marka dib la soo kulmo sida baradhada jilca. adiga go'aankaaga weeyaan. inta san barnaamijkeena maanta kusoo gabagabeynaya. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.